بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا wararka telefishinka madaxa banaan ee bulshada TV oo hadahan oo kale idin ka soo gaara stuudiyiisa koowaad ee magaalada Hargeysa warka caawana waxa idin soo timin doona anigoo Maxamuud Axmed Cali guddiga joogtada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan xog wareysi la yeeshay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Saad Cali Shire gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha uu qorsheysan urur siyaasadeedkiisa wasiirkii hore wasaaradda duulista hawada mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta shaaciyay in aanu wax khilaaf u dhaxaynin isaga iyo Jamaal Cali Xuseen qaar kamida salaadiinta waqooyiga iyo galbeedka Gabiley ayaa maanta eedeymo u soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmud oo habeenkii xalay ahaa casho sharaf u sameeyay dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer lagu taageerayay murashaxa madaxtinimada xisbiga udub siyaasi Cali Waran Cadde ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama ugu yaraan waxa ku dhintay 26 qof qarax weyn oo gilgilay dalka Pakistan madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo maanta ballan qaaday inuu bedeli doono dastuurkii dalka u yaalay isla markaana qaban doono doorasho daawadayaal kuwaas waa qodobada warka ugu doorka rool imikii haatan warkii oo fidsan guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan xog wareysi la yeeshay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Saad Cali Shire faahfaahinta warka waxa inoo haya wariye Najax Aadan Cunaaye wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Saad Cali Shire ayaa maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu warbixin qoto dheer ka siiyay guddiga joogtada hawlaha ay wasaaraddiisu qabato isaga oo hoosta ka xariiqay in muddadii uu joogay uu wax badan ka qabtay halka ay lama laaba inta uu qabtayna ay u harsan tahay sirku waxa uu ballan qaaday in muddada kooban ee xilka hayo aanu waxba ka hagran doonin balse uu dadaalkiisa isugu geyn doono sidii uu kordhin lahaa waxqabadkiisa guddiga ayaa kadib markii ay dhageystaan warbixinta wasiirka waxa ay su'aalo ka weydiiyeen hawl maalmeedkiisa gabagabadina waxay uga mahad celiyeen wasiirka imaanshaha uu yimi guddiga joogtada ah iyagoo u ballan qaaday in ay dhinacooda taageero ka siin doonaan socodsiinta hawl maalmeedkiisa gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay hawlaha uu qorsheysan xisbigiisa maruu maanta wareysi gaar ah uu siiyay telefishinka madaxa banaan ee bulshada TV faahfaahinta warkanna waxa inoo haya wariye Cabdiraxmaan Cismaan Isbatoore gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay qorshayaasha kala duwan ee uu qorsheysan inuu qabto Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo wareysi gaar ah siiyay barnaamijka kulan ee telefishinka bulshada TV ayaa waxa kale uu sheegay inuu bilaabayo kormeer uu ku tagayo gobolada Soomaaliland oo dhan si uu xafiisyo kala duwan uga furto goboladaasi gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa kale oo uu sheegay inuu ku hanweyn yahay inuu ku soo baxo saddex xisbi qaran ee golayaasha deegaanka ku soo bixi doona Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa kale oo uu sheegay inuu rabo sidii dalka Soomaaliland uu horumar ballaaran u gaarsiin lahaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay xisbiyada qaranka Soomaaliland isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri khilaafku ama xisbiga galo ama ururka galo ama qaranka meesha doona ka galeen khilaafku waa arrimaha ragaadiya dalka horida xisbiyadan 10 sano ayaa lagu soo tacbayay 10 sano ayaa maaragtay ummaddu ay ka himasuhisay maanta too khilaafkooda maxaa sababay ani waxay la tahay waxaa sababay bacdama xisaabtaani ay u dhaqmayeen oo hawshoodu u socotay nooc monopoly ay u socotay oo aan dhismahoodii ahayn mid sal ballaaran oo talada maaragtay tala sal ballaaran ee dimuqraadi aanu ahayn ee ahayd mid meel qura laga hagayay markii meeshiina la soo gaaray waqtigan ururana la furay ummadii halkan ku cabursanayd loo furay daaqada kale inay ka tagi karaan
waxaa keenay khilaafku markaa ummadii ayaa fursadahan cusub ee abuurmay uga diga roganaysaa marka intii xisbi walba ku soo hartay baa gudahoodii haddana maaragtay isdhaliilaysoo odhanaysaa khaladka adaale iyo saan maada marka waa nasiib darro khilaafku laakiin waa nasiib darro khasab ahayd inuu yimaado mar haddii dhismihii xisbigu uu markii horeba ciladii ku jirto Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa kale oo ka hadlay shir dhawaan ururada siyaasadda qaar kamid ah ay ku yeesheen hotel Hadwanaag ee magaalada Hargeysa isagoo sheegay in arrimo ay ka wallahi shirkaasi shir ma ahayn arrimo culus la islaamay wuxuu ahaa shir bacdama ururadii marka lagu dhawaaqay intii tiro istiwaan galisay ay isku baranayeen ayahay madaxdu isku baranaysay madaxduna isoo tusaaleynayeen mustaqbalka maxaa la wada qabsan karaa laakiin wax maaragtay hoos oo isla meel dhigmay jirin waxa ay kaliya in maaragtay la istuso in daaqadii wada furayeen rag weyn wax wada qabsan karo wasiirkii hore wasaaradda duulistiya hawada Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta sheegay in aanay wax khilaaf u dhaxaynin isaga iyo Jamaal Cali Xuseen faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariye Maxamed Jiciir Ahmed wasiirka hore wasaaradda duulistiya hawada Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay in wax khilaaf ay ka dhaxaynin isaga iyo Jamaal Cali Xuseen maruu maanta uu warramay TV-ga madaxa banaan ee Bulsha TV Cali Maxamed Waran Cadde waxa kale oo uu sheegay inuu xisbiga udub soo kala dhaxgalin wax khilaaf ah si uu mas'uul ka yahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin isagoo ka xariiqay in wax khilaaf ay ka dhaxaynin xisbiga udub si uu dhaxay isaga iyo Axmed Yuusuf Yaasiin hadaba Cali Maxamed Waran Cadde oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri ninka xisbiga mar walba lagu beeri karaa anytime ba qof lagu beeri karaa laakiin markuu doonayo inuu heer musharaxnimo gaaro waxa la yiri labadii sano u dambeeyay waa inuu xisbiga kamid ahaa oo active member waliba ahaa oo ahaa tan waxa looga jeedaa qofkan waxa horta koow inuu xisbiga isbarto oo barto kartidiisa wax qabadkiisa daacadnimadiisa in qofka la tuujiyaa loo baahan yahay dadka laftiisu inay bartaan wuxuu qaban karay xisbigu markaa wuxuu u baahan yahay ciidan ku soo noqonin inuu dalka u bandhigo oo muxuu ahaayay kaga gudbaan doorashada oo ku soo baxaan marka xisbiga laftiisu inuu yaqaan qofkan wuxuu yahay oo isbartaa loo baahan yahay sababta looga dhigay waa taa marka waxaan ku oolay inuu ku buuxin labadii sano lacagtina waa ka soo iibshay inta waxaad u shaqeysaa waxaan imika jecelkeen ka ilaa ayuu uga dhigay sabab laakiin waan celinayaa buu dad lacagta keento waan celinayaa okay mar haddaan labadii sano buuxin adigu aakhirkii waxay noqotay inaanu idinkiina celin sidii uu sheegayay ana u yeeray buu yiri marka mushkiladda meeshta la waxa weeye imika aniga iyo inankiiba dhib badan buu noo geystay dhib badan ayuu noo geystay markuu inankiina dhiiqadii lugaa u geliyay anigana aanu isqabsanay ayuu guriga hoosta xidho iska seexday marka waxaan la yaabanahay odaygu ma wuxuu ka qoostay wuxuu sheegay kulli 8 sano 3 sano barbaa kale doorashadii haddaan doorashada ku guuleysanay waa 5 sano kale dambe 9 sano ku dhawaad weeye marka waxaan isleeyahay odaygu ma wuxuu ka qoostay mar haddaan xisbigii 9 sano aanad waxna ka noqonaynin wasiirna ka noqonaynin madaxweyne ka noqonaynin qaar kamid ah salaadiinta waqooyiga iyo galbeedka Gabiley ayaa maanta eedeymo u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha faahfaahinta warkan waxay noo hayo markale wariye Cabdiraxmaan Isbatoore qaar kamid ah salaadiinta iyo waxgaradka waqooyiga iyo galbeedka Gabiley ayaa dhaliil u jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo wasiirka ku dhaliilay hanaanka uu maamulay go'aankii dhawaan uu ka soo saaray dhacdada Soomaal iyagoo mar labaad salaadiintan iyo cuqaashan ku celiyeen inaanay qabin dilkii Soomaal ka dhacay sidaas waxay ku sheegeen shir jiraayad oo ay maanta ku qabteen hotel Summertime ee magaalada Hargeysa
cuqaashan iyo salaadiinta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa kamid ahaa Sultan Xuseen Cirday, Caaqil Maxamed Ciige Geele, Caaqil Nuur Cilmi Samatar, Oday Cumar Maxamuud Sayre iyo qaar kale oo aad u fara badan. Dhamaantoodna waxa ay ka dhawaajiyeen inaanay qabin dilkii Seymaal, iyagoo dhaliilna u jeeday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna dhaliilay go'aankii uu ka soo saaray dhacdada Seymaal. Waxaana wasiirka ugu baaqeen haddii uu hayo ciddii ka dambeysay dilkaasi inuu soo bandhigo, balse aanu kolba qof iska sheegin. Salaadintaasi oo amuurahaasi ka hadlayeen waxay yiraahdeen sida tan: odayga iyo wasiirka dakhliga iyo gacmuhu way wada shaqeeyaan, waxaanu nahay gacmaha dawladda. Cuqaashi baanu nahay. Waxaan Soomaaliland ka dhicin ayaa nagu dhacay. waxaanu xasuusanay 1988 dagaalkii baanu xasuusanay. waxyaabo ba'an baa ka dhacay. odayaasha inta kale waxaan dhaafo odayaasha hadalku uu noo qaybsan yahay. waxa weeye si markay meel wax ka dhacaan dadku waxa dambare waa la badbaajaa, wixii horena raadca koobkiisa ama sida loo dooriyaa la yiraahdo. caalamku waa ku wada noolahay. waxa weeye sida wax loo baariyo wala yaqaan. sekteerka wax ka dhaceena waa la xidhaa, waa la baro dadka meesha wax ka dhacay baa wax la weydiiyaa. waxa weeye wixii la yiri nahaadu waxay ahayd waan guud maraya hadalka waad wada garanaysaa oo qayaxan yahay. kolka hore anigoo Sultan Xuseen Muuse Cirdaya waxaan ka hadlayaa qadiyadii u dambeysay ee Seymaal ka dhacday baan ka hadlayaa. waxaan leenahay qadiyadaasi qadiyad xun bay ahayd, wax diinta ku xun buu ahaa, wax qaranimada ku xun buu ahaa, wax jaarnimada ku xun bay tahay, wax islaamnimada ku xun bay tahay, wax la sameeyay aan ahayn bay tahay. waan ka xunnahay waxa sameeyeen kaariha ku dhacdo arrinka waan ka xunnahay baan leenahay. ilaahayna ha muujiyo waxa sameeyayna ilaahay dawladuna ha ku dadaasho ha qabato, ilaahayna ha muujiyo aan ka xunnahay. dadka labada dhinacba wax kaga dhinteena waan ka taxsiyadaynaa. dawladana baadhisteed iyo maxaygaba waan ku tahniyadaynaa kolka hore. gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad ayaa xalay toole madal casho sharaf ah u sameeyay dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer. waxa faahfaahintan inoo soo diray wariyahayaga gobolka Togdheer Mustafa Teacher. madaxda sare urur siyaasadeedka Gurmad ayaa habeenkii xalay ee xaflad casho sharafeed oo hotel Xamad ee magaalada Burco ay ugu sameeyeen dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer iyo waliba taageerayaasha urur siyaasadeedka Gurmad. munaasabadan ballaaran ee lagu qabtay hotel Xamad ee magaalada Burco ayaa ahayd munaasabad ay si ballaaran uga soo qayb galeen dhammaan dhalinyarada haweenka urur siyaasadeedka Gurmad ee gobolka Togdheer. munaasabadan ballaaran ee habeenkii xalay ha kulmisay madaxda urur siyaasadeedka Gurmad, haweenka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay xogayaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Axmed Baarood Ciga. waxaanu faahfaahin ka bixiyay ujeedada ay caawa kulankan ugu qabteen dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer. waxaanu sheegay xogayaha guud ee urur siyaasadeedka Gurmad inuu kulankan uu yahay mid ay isku xog wareysanayaan madaxda ururka Gurmad, dhalinyarada iyo haweenka urur siyaasadeedka Gurmad ee gobolka Togdheer. gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Muuse Carab Dugsiyo isna ka hadlay kulankan ayaa sheegay in dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer uu ku amaanayo soo dhaweynta fiican ay u sameeyeen wafdigan ballaaran ee ka socda urur siyaasadeedka Gurmad. wuxuuna sheegay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Gurmad Muuse Carab Dugsiye inaanay marnaba ilaawi doonin soo dhaweyntii fiicneed ee ay u sameeyeen dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer urur siyaasadeedka Gurmad. gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi oo isna ka hadlay kulankan ballaaran ay isugu yimaadeen madaxda urur siyaasadeedka Gurmad, dhalinyarada iyo haweenka ururka Gurmad ee gobolka Togdheer. wuxuuna gudoomiyaha ururkaasi Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi uu sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo haweenka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer sidoo fiican ay uga soo qayb galeen kulankan casho sharafka ay sameeyeen madaxda urur siyaasadeedka Gurmad. gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi isagoo ka hadlaya kulankaasi waxa hadaladiisii kamid ahaa: dhalinyaradu rag iyo dumarba ummadeena waxay kaga jirtay kaalin laf dhabar bay kaga jirtay. waxaan doonayaa rag iyo dumarba maanta inaan dareensiiyo mas'uuliyadda weyn ee dhalinyarada waddanka kasta. waxaa loo baahan yahay inay waqtigooda u huraan oo maskaxdooda u huraan oo aqoontooda u huraan sidii ay waddankooda uga qaadi lahaayeen meesha uu yaallo oo ay ku qaadi lahaayeen meel dhaanta haddii laga dhigo. waxaan leeyahay maanta siyaasadda cusub ee Soomaaliland ka bilaabantay waa inay ku bilaabanto dardar cusub iyo isxilqaan cusub iyo mas'uuliyad dheeraad ah oo ay dhalinyaradu dusha u ritaan oo ay qaataan, taasoo ah inay maanta isu diyaariyaan hoggaanka waddankooda inay noqdaan dadka silaamka ama hoggaanka waa inay noqdaan.
ka ballaaran ay isugu yimaadeen haweenka dhalinyarada madaxda sare urur-siyaasadeedka gurmad ayaa sidoo kale waxa ka hadlay haween iyo dhalinyaro waxaanay dhammaantood sheegeen inay hiil iyo hoogba la garab istaagi doonaan madaxda urur-siyaasadeedka gurmad wakhtiga ololaha doorashada. si kastaba haatee madaxda urur-siyaasadeedka gurmad ayaa muddooyinka u dambeeyeyba degmooyinka iyo gobolada dalkani Soomaaliland ayaa waxay ka qabanayeen kulamo noocan oo kale ah iyagoo halkaasi kulamo noocan oo kale ah la qaadanayay dhalinyarada iyo haweenka gobolada dalkani Soomaaliland si ay uga qayb qaataan waqtiga ololaha doorashada. Maxamed Ibrahim Xasan, Maxamed British Television madaxa bannaan ee Bulsha TV Burco. kulan lagu taageerayay murashaxa madaxtinimada xisbiga Udub Cali Waran Cadde ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama. warbixintan waxay nooga soo diray gobolka Awdal Cabdifataax Axmed. hoteelka Harawee magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacay kulan balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada taageersan musharaxa madaxtinimada xisbiga Udub ee Cali Waran Cadde. kulankan waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro fara badan waxayna ka hadleen madashan waxayna hoosta ka xariiqeen inay taageersan yihiin musharaxaasi waxaana qaarkood oo madashan ka hadlay hadaladooda ka mid ahaa. ayaa waxaanu taageeraynaa fikirka ay hogaaminayaan madaxda kale ah Cali Maxamed Waran Cadde iyo أحمد حاج داهر علمي dadweynahan meesha isugu yimid sharafta leh ee badan aqoonyahanadii gobolka Awdal sida muuqata marka organization-ka uu jiro hay'ad mudan مسؤول يمسؤول كحيل مسؤول كحيل من قصد حمل مسؤولك حزب الوحدة يعني مسؤول باكش غيام يعني وحدة حكام مدرب ظاهر يعني كيميا وحنا الدستور بيسموه وحنا أوتها سماي علي محمد العدي لكن هذا من هذا اللي يتدور كعوض وحنا عدينا ودكتور قديم جاهي يقول لي بس ده سنة تاجرة هذا السنة. حد دايره حد واحد سوستا من كل شغله وسعره بتقرشينها وحد واحد سوستا كرامل كل شغله وسعره وفافنتها وحقبض موضوع أيو صوت قبتي حسب جدته السنة وحوهانين كوفر فرعون. إنه أقصدنا هي يعني حسب جنوبه for long time حسب سوشيال قينتري أولي وحنا هكون سوي جوكسدين عن شيرنا إنه نتاجر سنة هاي إنه ورمعده هي أحمد حاج الله. جدا بشر كما قلت معي نقطة مثل إلا هو عن بعيا من الوقت لقاديه يا عيد إن أنا قاعد برناظرين كأنه قلنا يتغير عنه هنا حسب الوضع وحنا نقول كده مثل نقلي حسب الوضع وخلاف كتير أنا مهرب أقول أنا بدي لبعتك السنة أنا بدي تكتيس المال لأن لو كسرت لنا أي وضع كذا خلاف كنا ما عمل حسب كرتمية وأنا فكر كوالي وكرتمية أصلا واحد سكتوا فكر كدرت بنادي وكرتمية واحد رجيني عن سيدنا وبحلي خلاف بعض بقول بندور أحكي لنا وقت كشيء نعديه من هذا يروح قبل كعوض إن أنا متاجر سماعي علي محمد ورن عدي أحمد حاج داهر علمي وخروجي قطعي عبد الفتاح أحمد بوشة TV مقالة بورما. wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga ayaa kulan lagu ballaarinaya caafimaadka Soomaaliland waxa ay ku qabteen magaalada Boorama. faahfaahinta warkan waxa inoo haya mar kale wariyay Cabdifataax Axmed. magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta ka dhacay kulan loogu hadlayo dhanka caafimaadka waxaana kulankan ka soo qayb galay madax heer qaran iyo heer gobol oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gudaha Soomaaliland waxaana kulankan loogu hadlayay balaarinta caafimaadka gobolkan waxaana ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mudane Cabdi Axmed Nuur waxa uu falanqeeyay ujeedada kulankan iyo waxyaabaha loogu hadlayo isagoo hoosta ka xariiqay baahiyo kala duwan oo dhanka caafimaadka ah oo gobolkan Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland xilligan ka jira xoojinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan hooyooyinka iyo dhalaanka mashruucaasi wuxuu ku saabsan yahay horumarin adeegyada gobolka ah ee caafimaadka oo soconaya muddo 3 sanadood lagu xoojin doono isku xidhka MCH-yada iyo cusbitaalka guud cusbitaalka Boorame hab la yiraahdo referral system oo hawlaha in lagu qabto MCH-yada wixii cases ee adag ama u baahan adeegyo kale oo dheeraadana in la keeno cusbitaalka wuxuu ku saabsanaan doonaa mashruucaas
marka ugu horeyso tababaro loo qabanayo shaqaalaha oo lagu hagaajinayo xirfadooda caafimaadka waxaa ku xiga dayactir iyo ballaadhin lagu samaynayo dhismayaasha MCH-yada. cabdi fatax axmed bulsha TV magaalada Boorama. ururka samafalka tawfiiqa ayaa deeq lacageed oo ay soo direen qurbajooga gobolka Awdal waxa ay gaarsiiyeen gabadh si weyn ugu xanuunsanaysay muddo 3 sanadood magaalada Boorama. waa kan mar kale cabdi fatax axmed. ururka samafalka ee tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta deeq lacageed oo ay soo direen qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliyeed waxa ay ku wareejiyeen waalidka dhalay gabar yar oo muddo 3 sano ah si weyn ugu xanuunsanaysay gudaha magaaladan Boorama. gabadhan xanuunsanaysa oo magaceeda lagu magacaabo Umulkhayr Cabdilaahi ayaa waxaynu ka baahinay muddo laga joogo 7 TV-gan iyadoo ay u soo jawaabeen qaar ka mid ah dadka qurbajooga ah. madashii deeqdan loogu wareejinay waalidka dhalay gabadhan xanuunsanaysa waxaa ka hadashay Marwo Roodo Ibraahim Rijaal iyo Mahdi Aadan Riiraash oo ka mid ah ururkaasi tawfiiq ee dhanka samafalka ugu howlgala goboladan Awdal iyo Salal. Ibraahim Cabdilaahi oo ah walaashayda bugta ee halkan inoo jiifta maxaa ku dhacay muddo 3 sanadood iyadoo aad shaashadaha hore uga aragteen waxaa maanta u timid deeq lacag isku geyn lacagtaas waxa weeyaan $576 waxaan ilaahay uga baryaynaa inta sadaqada maanta aan u fadhino la soo baxday ku yar iyo ku weynba in ilaahay kaga xijaabo naaraha. waxaan ku wareejinaynaa hooyadii dhashay Umulkhayr oo ah hooyada halkan la fadhida Aamina Cabdilaahi oo Umulkhayr hooyada $576 ayaan ku wareejinaynaa. umada walaalaha walaasha Umulkhayr soo caawisana waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah inigu daro iniga ayaa iskala maanta qiyaamaha waxaan ilaahay iniga baryaynaa kuwa ilaahay carshigiisa waaraya inuu ilaahay iniga dhigo. waxaa sidoo kale deeqdan ka mahadcelisay waalidka dhalay gabadhan taasoo duco hawada u soo marisay dadka qurbajooga ah ee u soo danqaday dhibaatada xoogan ee gabadheeda muddada 3 sano ah haysatay. cabdi fatax axmed bulsha TV magaalada Boorama. halkaad weli nagala socotaan daawadayaal waa telefishinka madaxa bannaan ee bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. 26 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay qarax weyn oo gelgelay dalka Pakistan. faahfaahinta warkan waxa inoo haya wariye Najax. saraakiisha nabadgelyada dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax weyn oo ka dhacay deegaanka Jamruud ay ku nafwayeen 26 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kor u dhaafaysa 50 qof. qaraxan ayaa ka dhacay waqooyi bari gaar ahaan gobolka Khaybar oo ay degan yihiin qabiilooyin aad u tiro badan isla markaana xuduud la leh dalka Afghanistan. qaraxan oo ka dhacay goob laga raaco basaska taas oo ku taal meel suuq ah ayaan la garanin cidii ka dambeysay qaraxan iyadoo aanay jirin cid ilaa hadda sheegatay in ay ka dambeyso qaraxan saaka ka dhacay magaalada madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo maanta khudbad dheer ka jeediyay telefishinada caalamka ayaa waxa uu sheegay inuu isku bedel ku sameyn doono dawladiisa isla markaana wada hadallo la yeelan doono macaaridka isagoo inta ku daray inuu bedeli doono dastuurka dalka u yaala. faahfaahinta warkan waxa inoo haya Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilka case. madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa maanta ballan ku qaaday inuu dastuur cusub iyo doorashada uu qaban doono bilaha fooda inagu soo haya. madaxweyne Bashar al-Assad oo maanta khudbad ka soo jeediyay telefishinka dawladda Suuriya ayaa ballan ku qaaday inuu dastuurka wadanka uu bedelayo bisha 3aad ee soo socota isla markaana uu ku xigsiinayo doorashada baarlamaanka bisha May. waxaanu cadeeyay Bashar al-Assad inuu guddi u diray dib u habeynta dastuurka dalka ayna meel fiican maraysa shaqadooduna ay fiican tahay isagoo sidoo kale tilmaamay in aanu dalku u dib u habeyn siyaasadeed oo qura u joojinaynin dhibaatada dalka ka taagan balse doorashooyinka hore u baahiyeen. madaxweynaha ayaa ku celceliyay in isbedelka siyaasadeed ee lagu samaynayo dawladda ay ka kow tahay in ay ka soo baxaan siyaasiyiin cusub oo u tartama doorashooyinka golaha deegaanka buu yidhi waqti ku filanna la siin doono. Bashar al-Assad ayaa tilmaamay in xisbigoodu siyaasadii wax ka bedelo keeni doono iyo weliba wajiyo cusub oo dhalinyaro ah isla
islamarkaana ay ka qaybgalayaan shirka wadatashiga ee qadar lagu qabanayo waxaanuu mucaaridka ugu yeedhay in ay miiska wadahadalka asad ayaa sheegay in aanu waxba ku xidhnayn islamarkaana berri la bilaabmi doono hadday mucaaradku diyaar yihiin si kastaba ha ahaatee bashaar al asad ayaa maanta sheegay inuu dowladiisa wax badan ka bedelayo taasoo buu yidhi ugu horrayso hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa la geli doono xafiis kasta oo ay dowladdu leedahay tartanka kala reebidda musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay gobolka New Hampshire isagoo ilaa hadda la sheegayo inuu hogaaminayo Mitt Romney faahfaahinta warkan waxay noo haysaa Hodan Maxamed Cilmi tartanka kala harka musharaxiinta jamhuuriga oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay gobolka New Hampshire codbixiyayaal lagu qiyaasayo 250 codbixiyayaal ayaa maanta oo Salaaso ah u dareeray codbixinta musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo jagada kursiga madaxtooyada ay u tartamayaan 6 musharax khabarada u dhuun daloosho siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in aanay wax cusub ku soo kordhinahaynin codbixintan taas oo la filayo in uu mar kale ku guuleysto Mitt Romney oo hore gobolka Iowa ku soo guuleystay murashaxiinta ayaan iyagu la filahaynin in ay la tartami karaan Obama Mitt Romney ayaa 33% ku hogaaminaya gobolka taas oo siyaasadiisa ay u bogeen ragga ugu cadcad xisbiga jamhuuriga dhanka kalena ra'yi caamka Mareykanka ayaa tilmaamaya in madaxweynayaasha Mareykanku badanaaba ay gacan ka helaan bangiga dalka taas oo carqalad ku noqota murashaxa la tartamaya madaxweynaha magaalada New Hampshire ayaa meelaha la isugu yimaado laga dareemahaynin codaynta ka socota gobolka iyadoo kacdoomayaasha Wall Street ay soo buux dhaafiyeen waqooyiga magaalada kuwaasi oo ka gadoodsan dhaqaale xumida iyo shaqo la'aanta ku habsatay dhalinyarada Mareykanka daawadayaal intaa waxaa ku eeg wararkii naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo nidiin soo taminaya anigoo ah Maxamuud Axmed Cali intaan warkan mid lamida ku kulmi doona waa aniga iyo akhyaarta bulshada TV oo idinkaga tagayna fi amaanillah